maxay tahay heesta hadalhaynta badan dhalisay ay soo qaadeen kooxda Kheyladhaan walibana 24 saac ugu dambeeyay qabsaday baraha bulshada bal ila daaweystaan haday shalay qaran biliyo birmada ay ku baxsheen balaayani maamuliyo waxa tahay baasabu hogaankana baylasho dalkii buur hadimayo barin laga guurayo qoraan baad kala dhacay kooxdan kugumo cusba waa kooxda Kheyladhaan saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada waxa aad la isla dhexmarayay heestan ay soo qaadeen walibana ay ku garbaashayeen ama ay ku aflagaadeynayeen madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud warbixintaas ayaan jeclahay inaan kula wadaago haddii ay tahay markii kugu horeysay muuqaalkan ku soo gaaro like saar siina share gareysa saaxiibada kale u gaaro waadna ku mahadsantahay daawashada muuqaalka kooxda Kheyladhaan oo lagu yaqaano koox soo qaada heeso ku aadan gubaabo wadaniidnimo iyo sidoo kale dawlad jecel balse arinta hadda taas way ka bedelan tahay dadka Soomaaliyeed haatan Kheyladhaan heesta ay hadda soo qaaday waa ay ka falceliyeen walibana si aan horey loo arag ay arintaasi kaga hadleen inta aan u gudagalin waxa ay dadka Soomaaliyeed ama dadka heestaasi arkay falcelintana ka sameeyay waxa ay ka yiraahdeen heesta waxa ay tahay iyo qaabka ay u socoto ayaan jecelahay inaan la idin la wadaago heesta ayaa waxay ku qotontaa xilligan haatan la joogo 2025ka dalka Soomaaliya uu madaxweyne ka yahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo teerimka labaad ama xilligii labaad dalkan madaxweyne ka noqonaya heesta ayana wuxuu ujeeda ahaan daaran yahay maamulka iyo sidoo kale habdhaqanka madaxweynaha Soomaaliya walibana arimaha muddooyinka ugu dambeeyay dawladda ay waday ee ahaa burburinta shacabka Soomaaliyeed ay ku waday guryaha ay deganaayeen walibana danta guud ahaa oo dawladdu ku sheegtay in ay dib ugu soo celinayso gacanta dawladda si loogu shaqeeyo bulshada Soomaaliyeed heestan ayaana si weyn loogu aflagaadeeyay walibana si weyn loogu dhaliilay madaxweynaha Soomaaliya hab maamulka iyo sidoo kale qaabka uu ku maamulayo dawladnimada Soomaaliya balse arintaasi waxa si weyn ugu falceliyay bulshada Soomaaliyeed oo kooxda Kheyladhaan runta u sheegay walibana ay sheegeen in haatan dawladda jirta aysan ahayn in ay dhaliilaan walibana laga rabo kooxda Kheyladhaan in dhaliisha madaxda dawladda ama madaxda sare ee dalka ay tahay in ay simaan ee garba siman ay ku wadaan kooxda Kheyladhaan ayaa lagu dhagan yahay walibana waxay dadka baraha bulshada ay ku xiriira walibana heesta si weyn ugu falceliyay ayaa sheegay in kooxda Kheyladhaan markii dhinac loo fiiriyo heesaha ay soo qaadaan ay tahay mid hal dhinac u raran markii aan leeyahay waa mid hal dhinac u raran waxa ay ka wadaan dadka Soomaaliyeed maxaa ku soo aadiyay xilligan kooxda Kheyladhaan in ay hees u soo qaado dawladda haatan jirto walibana iyadoo aan ognahay in ay ka aamustay dawladdii tan ka horeysay ee 5 sano xilka haysay iyo waliba dawladihii hore ee dalka dhibaatooyin badan ka geysan jiray markii laga soo bilaabo dawladdii 2004 ilaa 2008 ee uu madaxweynaha ka ahaa madaxweynaha xilligaasi ee ahayd dawladdii kumeel gaarka Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyadoo aan ognahay dawladdii taa ku xigtay ee kumeel gaarka ahayd ee madaxweynaha uu ka ahaa Shariif Sheekh Axmed sida ay heesii ay soo qaadi jireen ay ugu dhaga hadli jireen walibana u dhaliili jireen xilligaasi taa bedelkeedana aysan jirin heese ay ku dhaliili jireen dawladdii taa ka horeysay ee kumeel gaarka ahayd oo madaxweynaha ka ahaa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed dadka Soomaaliyeed ayaa sheegay in dawladdaasi ay ahayd dawladdii magaalada Muqdisho keentay ciidamo Etoobiyaan ah walibana BM-ka iyo dhibaatadii ay ka geysatay xasuuqii dadka shacabka Soomaaliyeed ay ka geysteen magaalada Muqdisho ee kooxda Kheyladhaan xilligaasi ay hees ama dhaliil dawladda xilligaasi aysan u jeedinin balse taa bedelkeeda dawladdii ku xigtay ee kumeel gaarka ee madaxweyne Shariif Sheekh Axmed madaxweyne ka ahaa ee dhaliil iyo sidoo kale dhaleeceen iyo aflagaado ugu heeso badan ay ku soo qaadeen ay xilliga dawladdaasi ay ku dhaleecinayeen sidoo kale dawladdii federaalka ahayd ee xilligaasi dalka ka hirgalay ee uu madaxweyne ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud taa la mid ah sidoo kale ay dhaliil iyo dhaleeceen iyo aflagaado ay isugu dareen heeso ay ku soo qaadi jireen dadka Soomaaliyeed ee heestaas ay soo qaadeen kooxda Kheyladhaan sida weyn ugu falceliyay ayaa ku dhagan kooxda Kheyladhaan walibana iyagoo sheegay in ay ka aamuseen ama ay aamusnaayeen 5 sano ee dawladdii federaalka ahayd ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilka hayay walibana wax hees ah xilligaasi aysan ku soo qaadin dhaliil ama aflagaado ama sidoo kale dhaleeceen ay ku jeedinayeen dawladda markaasi jirtay markii laga hadlo dawladnimada ama madaxda dalka hogaaminaysa dhaliil wax la yiraahdo waa ay jiraan waa la dhaliili karaa laakiin dhaliisha ayaa waxay tahay mar walba in ay tahay mid joogto ah
madaxweyne kasta xilligaasi taagan in dhaliishiisa ama qaladkiisa loo sheego ayay dadka Soomaaliyeed ay heesta ay ku falceliyeen ama ay u sheegeen kooxda Khayladhaan. dowladdii madaxweyne Farmaajo aan ognahay wadanka xilligaasi xaaladda uu ku jiray dhibaatooyin ka dhacay kooxda Khayladhaan waxaa lagu haystaa in xilligaasi aysan ka soo hadlin. hal maalin gudaha magaalada Muqdisho xilligaasi waxaa ku geeriyooday ku dhawaad 1000 qofood kooxda Khayladhaan wax hees ay aysan ka soo qaadin. dowladda xilligaa jirtay ee 5 sano ee madaxweyne ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa dalka laga diibay muwaadin Soomaaliyeed oo hugan calanka Soomaaliyeed ee buluuga ahaa waliba loo dhiibay wadan shisheeye ee cadow la ah dalka Soomaaliya ee Ethiopia ninkaas oo magaciisa la dhigi jiray qalbi dhagax oo dowladdii Farmaajo ay dhiibtay kooxda Khayladhaan ma aysan ka hadlin. dadaalkii dowladda Soomaaliya ee 10kii bilood ee ugu dambeeyay ugu jirtay heshiiskii maamulka Somaliland ee la gashay dalka Ethiopia ee ahaa in laga kireeyo qaybo kamid ah xeebaha Soomaaliya kooxda Khayladhaan ma aysan ka hadlin. haddaba dadka Soomaaliyeed ayaa kooxda Khayladhaan u sheegay ama ay dhaheen heesaha qaadaan ma qarannimo ba mase waxa ku hoos duugan qarannimo ku baalmarsan ama ku hoos duugan qabyaalad. haddaba daawade heesta ay soo qaadeen kooxda Khayladhaan jawaab ma u noqon doonto ama jawaab ma siin doonaan falcelinta iyo ra'yiga iyo aragtida ay shacabka Soomaaliyeed ay ka dhiibteen. sidees u aragtaa heesta kooxda Khayladhaan ay soo qaado mar waliba ay dowladda ama madaxda qaranka ay ku dhaliisho? wixii ra'yi ah qaybta hoose ee commentiga faalada noogu reeb. haddii ay tahay muuqaalka markii ugu horreysay ku soo gaaro like siina share garay si saaxiibada kale u gaaro. waad ku maasan tahay daawashada muuqaalka.